si walba shidaalku waa tamar aad u fiican. Xornimadu waxa ay ka bilaabataa marka laga soo tago qalbiga inaad awood ahaan xor u noqdo. Nasiib darro, wadamo badan maanta xor kama aha dhinaca awood. Soomaaliya ma noqon kartaa wadamada shidaalka hodanka ku noqday? Waa su'aal aad u dhib badan oo aan sinaba suuragal u ahayn Soomaaliya inay xilligan wax horumar ah khayraadka ka samayso. Sababo badan oo jira awgood boqolkiiba 95 waxa sareysa in ay maanta khatarta ka jirta geyiga Soomaaliyeed inay mid ka darani dhici doonto ama ay dhax iman doonto. Bal waxaba dhici karta in ay Soomaaliya ku dhacdo marxalad ka khatarsan maanta ay ku sugan waxa lagu dhexdana ka gasho waxa lagu magacaabo nacdasha khayraadka. Aqoon-yahanadu waxay soo saareen, sheegeen, tilmaameen ama tibaaxeen wadamada khayraadka hodanka ku ah dhulkaasi inuu noqdo inta badan wadamo colaadi ka jirto iyo dhul aan amni ahayn. Wadamo colaad, fiqiirtinimo, dib u dhac ay ka jirto oo hagaasa ay ka hooseyso diilinta fiqiirtinimada. Dadkooguna inta badan diilinta fiqiirtinimada ay ka hooseeyaan. Waxa tusaale kuugu filan wadanka la yiraahdo Liibiya. Khayraadka uu leeyahay aawadii ayay dhibaatada noocaasi u soo gaadhay oo wadamada reer galbeedku kooxo matalayaal ay u samaysteen dalkii dhisnaan ay u burburiyeen. Waxa kale oo tusaale kuugu filan dalka Niger la yiraahdo Afrika ahaan sida wadamada Ciraaq, Syria iyo wixii la mid ah. Waa tusaalayaal cibro qaadasho mudan oo aad ku ogaanayso khayraadku marka la bilaabo ama la soo saaro dhibaatada uu soo jiidi karo iyo sida uu noqon karo haddii aanu jirin nidaam sugaya awoodahan iyo ciidan meesha ku hardamaysa. Waxa kale oo tusaale kuugu filan wadamada Afrika ee dahabka laga guro. Khayraadka wadankooga laga helay dadkoogu kuma diilinta fiqiirtinimada ayay ka hooseeyaan nolol iyo horumar iyo wax soo kordhay hayaan dhibaato u biirtay iyo wadanka Ciraaq la yiraahdo shidaalka uu dunida u dhoofiyo kama muuqato isagana xaaladda uu ku sugan yahay waydan aragteen. Waxa ay kooxaha shisheeye iyo dawladaha galbeedku ugu hardamayaan waa khayraadka yaala. Celcelis ahaan qiimayntii u dambeysay qofka Ciraaqiga ah dhaqaale ahaan sanadkii waxa soo gala $5,000. Tusaalayaasha marka aynu soo qaadano xaaladda Soomaaliya ee kala qaybsanaanta iyo qoqobnaanta iyo gacmaha shisheeye ee ku dhex jira marka aynu eegno waxa ay u badan tahay in ay Soomaaliya dhexda ka gasho waxa loogu magac daray nacdasha shidaalka. Alle ayaa ku shaqo leh ogsoona sida ay wax noqon doonaan haddii Soomaaliya ay ka badbaado caqabadaha shidaalka la xidhiidha iyo dhibaatooyinkaas soo hoosgalaya. Waxaa ka hor imanaya haddana isbeddelka adduunka ee xagga tamarta ah. Wadamadii shidaalka soo saarayay waynu ognahay iyo adduunkuba sidaa u socdo in laga guurayo khayraadka shidaalka la yiraahdo iyo soo saaristiisa adeegsigiisuna uu noqonayo mid sii yaraanaya waqtiga ka dambeeya.